kusoo dhawaada barnaamijka Fac Cusub. Toddobaadkan aad iyo aad ayuu u xiiso badan yahay, waxaana ku daawan doontaan xubniheenii joogtada ahaa ee wararka maalinteeda, isboortiska iyo xubniheenii kale. halkan hadda aad joogno waa xeebta Liido. saa u jeedina waxaa jooga caruur aad fara badan, waxaana weydiin doonaa markay imaadaan badda Liido waxa ay jecel yihiin iyo waxa ay sameeyaan. magacaa yaa kula socdo? ma jeceshahay dabaasha? maxaa ku jeclaatay inaad daweelatid? magacaane xasan. yaa kula socdo? ma jeceshahay inaad meeshaan imaad? okay, maxaa ku jeclaatay inaad inta imaad? dabaasha. magacaa khaalid. yaa kula socdo? ma jeceshahay inaad meeshaan imaad? okay, maxaa ku jeclaatay inaad meeshaan imaad? inaad dabaasho. okay, meeqa maalin inta imaadaa? khamiis iyo jimcaha. okay, waa maasan. yaa kula socdo? ma jeceshahay inaad meeshaan imaad? maxaa ku jeclaatay? inaad dabaasho. meeqa maalin inta imaadaa? khamiis iyo jimcaha. okay, waa maasan. sabaax. magacaa sabaax. yaa kula socdo? abba, aabahey iyo walaashay. ma jeceshahay inaad inta imaad? okay, maxaa ku jeclaatay? dabaasha. dabaasha ma jeceshahay? Soomaaliyeed taasoo isku tiirsanee xabatiina doontarane taayeerna welihiine. Soomaaliyeed taasoo isku tiirsanee xabatiina doontarane taayeerna welihiine. halkaani waa beerta nabadda, waxaana u soo dalxiis taga caruur aad iyo aad u fara badan maalmaha khamiista iyo jimcada. waxaana wax ka weydiin doonaa waxyaabaha ay jecel yihiin iyo markay imaadaan waxa ay sameeyaan. ismaaciil cabdulle. yaa qasnaa jirtaa? 12 sano. yaa kula socdo? hooyaday iyo aabiyey iyo adeerkay. goorma halkaan imaatay? yaa 10 sac. waxaan rabaa inaan meel fuul musawir galo. magacaa cabdiraxmaan ismaaciil. yaa qasnaa jirtaa? 14. yaa kula socdo? hooyo aabiyo adeer. goorma imaada halkaan? maanta 10 sac. marka halkaan imaad maxaa jeceshahay inaad sameysid? inaan alaabta iyo iifooga korkoro iyo beerta nabadda waxay ka mid tahay meelaha ugu quruxda badan ee caruurta inta badan ay u soo dalxiis tagaan. goobtan waa goob loo diyaariyey inay ku ciyaaraan caruurta. waan ilaaway inuu cudurka coronavirus jiro oo khatartiisa aad u badan tahay. intaan wejiga gacmaha la aadin waa inaan hadda gacmaha iska dhaqaa.
sababta aan sidan u sameynayno. Wasaaradda caafimaadka waxayna faraysaa in markaad hindhisayso xusulka aad laabatid. Ku dabool afkaaga ama sankaaga afshareer. Ku dhaqo gacmahaaga mar walba jeermis dile. Waa inaad dadka ka fogaataa ilaa iyo 1 mitir. Waa inaad dhaqdaa gacmahaaga mar walba. Haddii aad isku aragto qandho, ha aadin saaxiibadaada ee u sheeg waalidkaaga. Waa inaan ku dadaalnaa nadaafadda si aan iskaga ilaalino cudurka coronavirus. Waa maxay sababta sidan u sameynayno? Maxaa yeelay waxaa jiro cudurka coronavirus. Saameynta cudurka coronavirus uu ku hayo wadamada kale markii loo barbar dhigo Soomaaliya waa mid liidata. Laakiin waa inaan ku dadaalnaa nadaafadda. Qof walbo ka digtoono cudurkan. Toddobaadkan uu ka xiiso badan yahay toddobaadadii hore ee xubintii maalinteeda aad fiirsan jirteen. Toddobaadkan waxaa booqasho u tagay 2 gabdhood oo walaalo ah oo khamiistii Jimco kasta guriga hooyadood la keeno si maalintaas oo dhan ay ula joogaan walaalahooda dhashay iyo hooyadood waqti fiican la qaataan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladhina aamanu wa 'amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. nasiib wanaag waxaa u imaada ayagoo qur'aan akhrisanayaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهر إن شانئك هو الأبتر. labadooda ayaa la sheekaysan doonaa si ay noogu sheegaan iskoolka ay dhigtaan, waxyaabaha ay ka bartaan iyo maalintaas waxay sameeyaan. Siman, maalintaada noogu sheekeey. Kilinka hore anaka hurdena 7 saac aan soo kaciyaa. Waa cadeysana oo is qaadanaa masaajidka aadna. Marka la tukaro waa tukanayna, waa soo baxayna, waa duceysanayna, shaqaa galayna. Waa soo laabanayna 1 saac iyo juus markay tahay dugsiga galna. Aan soo aqrinayno markaa kadib waa kasoo baxnaa, waa labisana, waa qabaysanaa, qada aadna. Qadada kasoo laabanaa iskoolka galnaa. Iskoolka markaa galno, iskoolka u joogno 4 maad markaa qaadano 9 saac soo baxnaa. Salaada tukanaa, waa soo laabanaa. Markaa soo laabano 2 maad la qaadanaa, waa la baxaa guriga la aadaa. Guriga marka la aado waa la qabaysanaa, diracyo iyo xijaabaa la gashanaa, cashaa la cunaa. Waa la soo baxaa, kitaabadina soo qaadanayna, waxaa aadaynaa guriga, waa akhrisanaynaa. Macallimada quraan oo meeras habeenkii seexanaa. Intaas dhan waxaan ku sameynaa xarunta barbaarinta carruurta booliiska Soomaaliyeed. Siman waxay ka weyn tahay ubax, waxay noogu sheekeyn doontaa mid ka mid ah sheekooyinka aadka u xiisaha badan ee iskoolka soo baratay. Anigoo magacayga Siman Axmed Maxamed, waxaan soo jeedin doonaa sheeko yar. Waxaa jira boqor, wuxuu u talin jiray tuulo. Tuuladaasna waxaa degnaan jiray dad aad iyo aad u fara badan. Maalin maalmaha ka mid boqorkii wuxuu sii raahday hal marbax magaalada tuulada soo wareeg, dadka dhibaatada soo fiiri. Marka tuulada dacas looma qaadan, dacas ma jiri jirin. Markaas kadib boqorka soo u socday ad gurigiisa ku soo laabtay, lugiyo bararayo arkay. Markaas wuxuu dhahay aawa askartay magaalada tuulada maqaar loo fidiyo. Markaas kadib askartii mid ka mid ah soo booday, wuxuu dhahay taliyow anaa maqaar kaba ku sameynaayo. Wuxuu dhahay maya, tuulada ha loo fidiyo. Sheekadaas ku kooban tahay. Subaxdii baan soo kacaa, salaadaydan oogaa, suuradaydan akhristaa. Subxaana Allah walxamdulillaah. Meel ma aado, maskaxdayda cilmiga
uu mashquuliyaayo iyeyo iyo calankeena suuban ya salaamayaayo uu garaaca saacadka 1 2 3. ubax waxay ka yartahay siman. Waxaan weydiin doonaa waxyaabaha ayadana ay sameyso maalinteeda ku saabsan. Magacaaga saddexan? Ubax Axmed Maxamed. ubax iskoolka maxaa ka barataa? wax balba wax walbaa ka barataa. maadooyin badan ma qaadataa? meeqa maadaa qaadataa? 2 maado. 2 maad bisa? haa, 2 maad maxay kala yihiin? Soomaali xisaab. maadada jeceshaha markaadi? xisaabta. maasha allah, xisaabtaa jeceshahay. haye fasalkee tahay? labaad. fasalka labaadaa tahay. goormee ayaa iskoolka gashiin? 7 saac. 7 sac galbiyaa gashiin. subaxdina? dugsi. subaxdina dugsiyaa dhigataa. maxaa dugsiga maxaa ka barataa? waxba qur-aanka iyo qur-aanka kariimka aa ka barataa. haa, qur-aanka intee mare? aniga haa, tabad. dabbadaa mare. maxaa jeceshaha marka mustaqbalka markaa weynaatid inaa noqotid? askari. maasha allah. لا haddana waxaan soo gaarnay xubintii akhlaaq wanaag ee barnaamijka Faac Cusub. waxaan su'aalo weydiin doonaa carruurta ku nool magaalada Muqdisho sida loo noqdo qof fiican. Soo dhawaad barnaamijka Faac Cusub. magacaaga? Anas. waxaa ii sheegtaa sida qof wanaagsan loo noqdo. waalidkiintii baari loo noqdo oo dugsiga la dhigto oo salaada la dhigto oo iskoolka la dhigto oo ilaahay laga cabsado. أنا مدعي حسين عبد الله عبدالله صلاتنا على الكتب ووالد بار لون نخرج دوسيد العادة. أحمد عبد الحسن قف معلومة على بار دكتور إلى الآن أسكال في الآن وحنا ندي صلاة. goobtan waa goobta ay ku ciyaaraan carruurta maalmaha khamiista iyo jimcada. hadda waxay ku jiraan diyaar garow, waxay rabaan inay ciyaarta bilaabaan. waan daawanaynaa kadibna ayagaan wareysan doonaa.
haddana waxaan soo gaarnay xubintii su'aalaha ee aadka u xiiso badneed. Cunug kastana waxaa weydiin doonaa hal xiraale ku saabsan cunug hooyada dhashay oo walaalka ahayn. Ku soo dhawaad barnaamijka Faac Cusub. Magacaa Misaal waxaa ii sheegtaa cunug hooyada dhashay oo walaalka ahayn. Ma aqaan. Waa mahadsantahay. Ku soo dhawaad barnaamijka Faac Cusub. Magacaa Xamdi waxaa ii sheegtaa cunug hooyada dhalay oo walaalka ahayn. Aniga. Waa mahadsantahay Xamdi. Ku soo dhawaad barnaamijka Faac Cusub. Magacaa Safiyo waxaa ii sheegtaa cunug hooyada dhashay oo walaalka ahayn. Ani. Waa mahadsantahay.
saa arkaysiin toddobaadkeena aad iyo aad ayuu u xiiso badnaa. waxaan ku kulmi doonaa toddobaad kale insha allah.